الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدنيال يمروين سود وهذا مركب كوباد أن حفلتين بلعبان دونا عاوة أو أي تهاي شنية بنكي مي لبكون يلحي لباتن هل كان وحين السكون من حفلة قيمها بدن إن نكوحسنه سديدية بنكي مي شن يصدن سنة كدب لصو نقشدي جمهورية سوماليلاند آياتها القرآن الكريم أو إنه آخري دونه داق محمود شرع فليتفضل مشكورا سودو آياتها القرآن أيو داق إنه آخري دونه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم إلهي هاي نقوى آياتها القرآن الكريم markale soo dhawaada mudanayaaliyo marwooyin waa idin mahadnaqayaa ina waqtigiina qiimaha badan aad maanta qarankiina u xusasaan oo aad halkan u joogtaan inaad maanta ka qayb qaadataan xafladan qiimaha badan runtii xafladan qiimaheeda iyo wada jirkeeda jaaliyada Somaliland ee dalka ama cariga North America ayaa ka shaqeysay iyadoo wada jirta waxaan furitaanka iyo soo dhaweynta kelmadda iyo xafladda iyo sida loo soo agaasimay aan ku soo dhaweynaya furitaanka kelmadda gudoomiye Muxyidiin oo ah gudoomiyaha jaaliyada Somaliland dalka Mareykanka soo dhawow Muxyidiin bismillahir rahmanir rahiim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa ii sharaf ah inaan maanta xafladan شريعة الجمهورية كسو وريكتي قرنمة سوماليلاند إننا هالكن كو قبناينو هذه دوما مع سنتين ساو قصو قيب كشين ما أنت قرنمة حفلدو وينو فرنتاي واسكو دمبنا لكن حفلدو وينو فرنتاي دوما مع سنتين دماتين أدو ما تسيه هاي قدومي محيدين ماني لاوين هاستي علنكا ويسوسعتها waxaan filayaa ama ka codsanayaa DJ-ga oo liibaan oo halka xagga farsamada inoo fadhiya inuu inoo saaro heestii calanka waxaan ka horeysiin laase waxa ila jooga wariye Siciid Aadan oo isaguna qaybta dambe ee barnaamijka xiriirin doona oo halkan igu nagula sugan qayb weyn oo la xadlana ka qaadan doona qaybta dambe ee xiriirinta barnaamijkeena waxaan codsanayaa heesta calanka in waqti xaadirkan lagu soo dhaweeyo hadda naftooda uu sateeyay qaranimada Somaliland geesiyaashii naftooda uu sateeyay qaranimada Somaliland iskooda dhowrsan kugu salaamaysaa makuwa iskooda dhowrsan kugu salaamaysaa makuwa samakuwar marti badan baa inala joogta oo ino qayb hadalka ka siin doonaa waxaan ka xusi doonaa wasiirkii hore boosaha iyo isgaarsiinta Maxamed Abgaal ayaa isaguna halkan nagula sugan jaaliyada Puntland ayaa sidoo kale iyaduna qayb ka ah oo halkan maanta inagula dabaaldegaysa waa u mahad celinaynaa
waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee iyaguna halkan nagula sugan oo aan mid aanan u xusi karin qaybta dambe ee barnaamijka kolley kama maqna heesihii calanka lagu xusayay iyo fanaaniintii oo iyaguna ay diyaar inoo ah oo runtii naga haqabtiri doono midba midka ka wanaagsan tahay halkan inooga soo bandhigi doona taariikhda Somaliland runtii aad bay u qoto dheertay marka la isira ka warrama ama ka sheekeeya lama soo koobi karo ilaa 60kii marka laga soo bilaabo ilaa waqtigii ka horeeyay ilaa la soo noqoshadii runtii lagama gayoonayo kumana soo koobi karno hal eray ama khudbad kooban balse waxa halkan isagu aan uga yeeri doonaa safiirkii hore ee Somaliland ee u joogay Australia Sharmarke oo isagu taariikhda Somaliland qayb kamida halkan inooga taaban doona oo aan Sharmarke ku soo dhawow safiirkii hore ee Australia ayaan halkan ku soo dhaweynayaa taariikhda Somaliland bal wax hay nooga sheego bismillaahir rahmaanir rahiim mudane marwooyinba habeen wacan oo wanaagsan waa dabaaldegii iyo damaashaadkii aynu u dabaaldegaynay jamhuuriyadda Somaliland runtii farxad aad u weyn ayay noo tahay 18 May oo aan halkan iskugu nimid waa xaflad runtii ka duwan xafladii hore aynu soo qabanay waa xaflad la kowsatay Somaliland oo markii u horeysay dhowr iyo 30 sanadood ka bacdi اعتراف هالشيء ودولة مدح بنان وأدونك لقى قوسين هاي نقطتي إن رنتي حفلة وحان شعلا هاي إن عن قضبك وكوبا عن كهدلو قضبة صوت طبعا عن شعلا هاي إن مرتبة دنا ما دام أي شوكتو إن عن صوت كوبا دمانتود إن مدوجه الرئيسة إن مجا أيجوا أمباستور شرماركة في الله نور قدومي كوجين كشالي الصومال قبل كمينيسوتا عريق أمريكان كان وحرنتي فرحات إيه إنه نعاو يسكون مد حفلة سيدا قروح بدن هيرك سرعة لوسو أقاسمي مدن لقاسو شقينا يي تعب بدن يوقت بدن لسو قليي رنتي فرحات عن لسو كوبي كرين أي نوتة هاي وحان شعلا هاي إن سيجود يسيجارها أنا يتبع أنو مهاد نقو تيمكي أنا وذا شقيني قبل قابضة يسكت بريد كحفلة دنبا لفدبرت أو أها قيبة اللي بحكي قاتي إن أو هل كان دمان تود عاوكو وذا سجن إن سكال يلابه أي أنا نقوم هذا غير دمان تود أنا نقف يا شخص تون أو شيء جينين صعب يا مش حراد هلا يقصد ويجود يجي سوق قبل قابي حفلة قروح ذا بدن أنت هدي أن كسي قدبو وحن شعلا هاي إن هاد نقو أو أن رنتي آدو سود ويو فنانين تين عاو يقولون قوبتا كسوغان حفلة دن إيا دماشات كان ننقل غيب قادنا إسا وحن سيقارا وقوم هاد نغيا ونسود وين إيا فنان كوين قرنيقا سير محمد عمر عبدي إليه أو كي مدال كإنجريسكا فنانين تكالي إلا سعوتا oo halkan iyaguna jooga iyo fanaaniinta kale dabcan iyaguna reer Minnesota hodan Cabdiraxmaan Mursal iyo fanaaniinta kaleba dhamaantood aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa hodan ayaa hadda sabagteeda maraysa sacab iyo musharaxa la igu soo dhaweeyo inta haddii aan ka sii gudbo waxa aan jeclahay inaan si kooban oo uga hadlo halgankii iyo taariikhdii loo soo maray jamhuuriyadda Soomaaliya oo run ahaantii ahayd waqti tacab badan la soo galiyay loo kala dambeeyay muddo badan laga soo shaqeeyay waxaan halkan aan ka xusayaa maanta oo aan jeclahay inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo soo dhaliyay i'tiraafka maanta Somaliland ku naaloonayso sacab iyo mushharad waxa kale oo aan si gaar ah isagana halkan aan uga salaameynaa gudoomiyaha xisbul xaakimka wadani mudane xirsi xaaji cali xasan sacab iyo mushharad waxa kale oo isagana aan halkan si gaar ah uga salaameynaa gudoomiyaha xisbiga ka mudane maxamuud xaashi cabdi sacab iyo mushharad waxa kale oo isagana aan si gaar ah halkan uga salaamayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin axmed صعب يا مشحرات
waxa kale oo isagana aan si gaara u salaamaya gudoomiyaha golaha wakiilada mudane yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon sacab iyo mushxarad waxa kale oo isagana halkan aan ka salaamaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane aadan xaaji axmed isagana sacab iyo mushxarad hal igu soo dhaweeyo ugu dambeyntii isagana halkan waxa aan ka salaamaya gudoomiyaha golaha gurtida Salebaan Maxamuud Aadan Salebaan Muslim isagana sacab iyo mushxarad inkastoo Salebaan runtii uu ahaa gudoomiyihii ku dhuftay dubaha yar ee kordhinta qolyahayaga isku diyaarinay baarlamaanka soo socda aad iyo aad ayaan haddana halkan mar labaad uga salaamaya intaa haddii aan ka sii gudbo waxa aan jeclahay inaan taariikhdii Soomaaliland oo kooban halkan aan caawa ka sheego ugu horeyn waxaan jeclahay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo madaxweynayaasha intii dhimatay inta noolna nolol fiican iyo cimri dheer ayaan ilaahay weydiinaynaa ugu horeyn waxaan halkan aan ka xusayaa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland ee Soomaaliland oo xora suurta geliyay mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur waxa uu aasaas u ahaa xoreyntii iyo diyaarintii iyo isku dibariidkii Soomaaliland isla markaasna madaxweyne Cabdiraxmaan si nabadgelyo leh ayuu xilka u wareejiyay waqtigiisii waxa kale oo isna halkan aan ka xusayaa madaxweynihii labaad mudane Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo isaguna ahaa aabihii aasaaska dimuqraadiyadda Soomaaliland salka u dhigay Soomaaliland maanta aynu ku naaloonayno dhidibada u taagay sacab iyo mushxarad waxa kale oo isna halkan aan ka xusayaa mudane Daahir Riyaale Kaahin oo laba jeer oo isku xiga soo noqday madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo godka ha u nuuro mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo ahaa aabihii dimuqraadiyadda si aan baqaaday isla markaana ku suntanaa taariikh weyn oo fac weyn ku lahaa dalka suurta geliyay in ay Soomaaliland caalamka u furanto meelo badan oo kala duwan laga barto ganacsiga xaqiisa hadday noqotay dhan walba isagoo dawladdiisii ay ku guulaysatay dalka inay keento shirkadda DB World oo caalamka oo idin laga yaqaan maantana si hagar la'aana oo baaxad weyn uga howlgasha dalka Soomaaliland waxa madaxweyne Siraanyo oo kaloo lagu xasuustaa jidka Burco Arigaabo oo ahaa jid weyn oo in badan xayirna oo uu suurta geliyay waxa kaloo madaxweyne Siraanyo lagu xasuustaa darajadii ciidanka qaranka uu bilaabay inuu bixiyo ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo waxa ku sii xiga waa madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna ahaa madaxweynihii si aan baqaaday dimuqraadiyadda Soomaaliland oo aynu maanta ku naaloonayno isagoo oo suurta geliyay barnaamijkii iyo mashruucii ugu weynaa ee loo yaqaanay shaqo qaran oo dalka ka hirgalay waxa kale oo madaxweyne Muuse Biixi uu ku suntan yahay sii wadistii iyo isku dibariidkii mashruuca Berbera Corridor Soomaaliland runtii waxa ahayd marxalado kala duwan oo la soo maray waxa maanta isaguna tooshkii qaaday Olympiga waxa weeye madaxweynaha maanta xilka haya ee hirgeliyay muddo sanad ka yar inuu keeno ictiraafka Soomaaliland dhowr soddonka sanadood ay sugaysay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro sacab iyo mushxarad Soomaaliland runtii waxa weeye wadan aynu in badan maxaan ku raahdaa loo soo samray loo soo dhabar adeegay isla markaasna hami iyo hindis badan la soo geliyay waxaan rajaynayaa in aynu halka ka sii anba qaadno insha Allah ta'ala dawlado kale badan ayaa iman doona ictiraafka Soomaaliland soo raaci doona barnaamijka caawaan soo diyaariyay waa uu dheer yahay maadaama martiduna ay badan tahay waxaan jeclahay inaan soo koobo dhammaantiina aad iyo aad baan idin salaamay waxaan leeyahay happy 18 May waad mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay Sharmaarke mar kale aad iyo aad buu mahadsan yahay ila soo dhaweeya fanaaniinta hal sacab
marka hore u garaaca dhammaantood iyagoo isku dhan soo dhawaada maan laye waxaan codsanayaa in waqtiga la koobo waqtigoo kooban awgee in qof kastaaba khudbadiisa uu soo koobo ayaan ka codsanayaa marti sharafka halkan ka hadli doonta dhammaantood iyagoo isku duuban fadlan inoo soo kooba taariikhda Somaliland waxaan ku soo koobi karaa un dhowr qodob oo ah adkaysi iyo اعتراف waxaan imanka u yeeri doonaa maxamed muuse اعتراف ila soo dhaweeya maxamed waxaan ka codsanayaa inuu koobo isaguna kelmadiisa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبي أيتين ما بين أرض دمانتين دليل عاو واحد مودا إلى وحوجا يرعى جسناهي رئيس مالا مغل مشرع ذلك والله استرافيس نوليا هبي أيتين وهي مرتبة إن أنا شوكتا شعورتي نبوشيا وحنو لا نعمر والبقرة كوجو ليستو عاو خطبة إذا أنا وحكسو كوبي يلا بإيري لبدا إيري وحوي عاو حفلتنا حفلتي هروي كدوانتاي waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan waa midnimadeena awal hore laba xafladood oo kala duwan baynu qaban jirnay qarankeenu wuxuu u baahan yahay markasta midnimadeena waxaynu ku guuleysan karaynaa waxa weeyaan midnimadeena inaguna waxaynu hadda u baahanahay inaynu qaranka u shaqeyno oo xal ku meel gaar u qaranku ku jiray aynu gaarsiino xal waara maxaynu ku gaarsiin karaynaa ma inagoo kala sheegana mise inagoo wada sheegana inagoo wada sheegana ayaynu ku gaarsiin karaynaa qaranka xal waara diyaar ma u tihiin markaa dhammaantiin in qaranka aynu u wada shaqeyno idinma maqlo diyaar ma u tihiin qaranka inaan u wada shaqeyno waxaa ku xigi doona oo halkan uga yeeri doona munafidin oo dhinaca iyadu siyaasiyad firfircoon ah muna ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan ummadda Somaliland ee halkan isugu timi caawa ee xusaysa maalinta weyn ee 18 May oo ah sanad guradii 35aad waxaan u maleynayaa inaan la ismaqlaynin oo dadku ay hadlayaan intaan arkaayo waxaan idinka codsanayaa intaynaan hadalka bilaabin sanadkii hore aynu halkan isugu nimi inagoo biraac itiraaf ah oo wali raadinayna ayaynu isu nimi se maanta inagoo itiraafkii helay ayaynu haddana mar labaad halkan isugu soo noqonnay waxaan idinka codsanayaa 1 minute Somaliland silent u gala oo u duceeya 1 minute baan idinka codsanayaa inuu qof walba halkiisa ku amsa Somaliland u duceeyo waxaan wali arkaa in la hadlaayo marka qadiyadu inay nagu dheeraato aad u fiican inta ka bacdi waxaan hadalkayga ku bilaabayaa mahadnaq aan u mahadnaqayo gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Mr. Muxyidiin ugu horeyn mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qabaqabayaashii xafladan soo qabanqaabiyay quruxda badan leh maanta inoo hirgeliyay inaynu isugu nimaadno inagoo ku faraxsan mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa marwada madashan quruxda badan leh had iyo jeer u heelan inay mar walba iskeen garab taagto ay inoo sharaxdo ay inoo xaradho ay ku xaradho calanka Somaliland iyo wixii kale qurux badan aynu markaa u baahanahay marwa nuuri iyadana sacabka ha loo tumo waxaan ku xigsiinayaa fanaaniinta qaranka ee ummadda Soomaaliyeed iyo bahda saxaafadda ee hortayda soo taagan dhammaantood sida hagar la'aanta ee ay hawsha mar walba u taagan yihiin ay u gudanayaan mar kasta loo baahdo ay u taagan yihiin mar ugu dambeyn marti sharafta dhammaan halkan isugu wada timi dhammaantiin waan idin wada mahad celinaya sida quruxda badan leh iyo teamkiina kole farxad baad sugaysaan maalin qurux badan oo waxaad sugaysaan ayna awalba filaynay maanta way ka duwan tahay maalimihii hore happy 18 May happy 18 May happy 18 May waxa weeye itiraafku maaha in wadanina itiraafo laakiin qalbiga ayaynu iska itiraafsanahay waligeena waynu itiraafsanayn
waxaad arkaysaan maalin walba ubadkeenna yaryaraa ee laba jirka ee hadda hadalka baranayay wax kale kuma bartaan waxay ku hadaaqaan ay ku bartaan qadiyadda Somaliland taasaa ictiraaf la yiraahdaa okay inta ka bacdi xukuumaddeena maanta haddaan in yar aan isdul taago xukuumadda maanta wada jir iyo wax qabad ayaa la yiraahdaa way ka duwan tahay xukuumadii hore aad iyo aad bay u duwan tahay dadaal badan oo ay muujisay daraadeed waxay muujisay maamul wanaag waxay iskaashi nabadayn tanaasul iyo dulqaad iyo horumarin iyo iwam wixii la mid ah okay waxaan si yar dul taagayaa Somaliland maxay ku bedelatay oo in badan ay isweydiiyaan ama dadka deriskeena ama dadka qaarkood badidooda waxay isweydiiyaan Somaliland maxay ku bedeltay ictiraafka ay wad ay keentay ay la gashay dalalka qaarkood waxay ku bedelatay inay wadanka Somaliland horumar gaarsiiso ay abuurto future ay la wadaagto dawladaha kale ee dhigeeda ah ee haday deriskeeda tahay iyo haday qolo ay mid ka dheer tahayba Somaliland waxay u bislaatay ay diyaar u tahay sidii ay resource-keeda uga midho dhalin lahayd ay u iibgeyn lahayd ee adduunyada wax ula qabsan lahayd ay la macaamili lahayd ay wax soo saarkeeda u maalgashan lahayd Somaliland waxayna bartay waxay ka bilowday meel soka iyo deris kamay bilaabin meel soka kamay bilaabin Somaliland waxay ka bilowday dawladda Israa'iil inagu diin maynu weydiisanin diinna 35 sanadood maynu raadinaynin 35 sanadood waxaynu raadinaynay in aynu ka mid noqono dawladaha adduunka ka dhisan tiina waan ku guuleysanay waxaan rajaynayaa anigu in yar oo kaliya ku darsanaya anaan hadalka ku sii dheeraan uga baxaya waxa la hadal nin wada yirina ma wada oran mid in yar yirina ma wada oran mid wax badan yirina ma wada oran waxaan hadal ku soo dhameynaya mikrofoonkan u maleynaya halaga yar fogaad waxaan hadal ku soo dhameynaya aniga tanaya shakhsiyan baan ku yar darsanaya aniga waxaad aragteen in baraha bulshada xoogaa yar la igu mashquulay oo had iyo jeer lay soo dhigo laakiin waxaan taas aan ka doorbidaya inaan u sheegayo in aan ahay Somalilander oo magacayga iyo muuqayga maanta dadka bilaadanka dadka qaarkood waxa lagu soo dhigaa waxyaabo kale ayaa lagu soo dhigaa baraha bulshada lagu bartaa laakiin aniga muwaadannimo iyo Somalilandernimo ayaa la igu bartay ninkii ugu nacaya iyo ninkii ugu jecelba I'm proud to be a Somaliland. Now I would like to welcome in Robbie Gulai, candidate of Minnesota State Senator. Welcome to the stage. Thank you everyone so much for being here tonight and for having Go ahead. I'm so happy to be here celebrating with you and so happy to be here celebrating Somaliland with all of you. This is a beautiful event. We are so lucky to be here in our district in St. Paul. We're in District 65. And I'm excited to be the next senator for District 65 and to work with all of you to make sure that everyone is represented and that we're taking the issues that we need to the Capitol. Thank you so much. Okay. You want to add something? No, that's all I think. So Yeah. Assalamu alaikum. I don't see red Somaliland. Assalamu alaikum. De waxaan rabay gabadha senatarada markay idin soo istaagtay inaad dhammaantiina aad sacab si kal iyo laab ugu soo dhaweydaan Soomaaliin. Bengulay waxay u tartamaysaa state senatorka 65 waa xaafadan hadda aan joogno gurigan iyada ka talisa kana talin doonta 40 sano soo socota.
Robin Guley waxay idinka codsanaysaa inaad u codaydaan insha Allah maadaama ay doorashadii hadda mar labaad ku soo noqotay ku soo laabanayso waxay idin leedahay waan inaad i codaysaan doonayaa laakiin waxaan idin ballan qaadayaa Robin Guley oo senator ah inaan Hargeysa ka soo dejiyo hadduu alla ma yidhin ayadiyo kuwa kale badanba Thank you very much, Robbie Gulay, the candidate of Minnesota State Senator. Thank you very much, as a Somalilander. Thank you, thank you, thank you. And waxaan hadda ku soo dhaweynayaa oo muddo dheer halkan inagula sugnayd wakiilka Puntland ee North America Mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen oo in muddo halkan inagula sugnayd si ay qayb inooga qaadato fadlan ila soo dhaweeya waa ku mahadsantahay inay qayb ka noqoto oo walibana xilli hore timaado oo ay na sugto aad baan ugu mahad celinayaa stage-kana waan ku soo dhaweynayaa kelmadeeda ayaan ku soo dhaweynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا دمانتين مقعيق وملك عبد السمد حاج حسين وكيل كدولة بنتلان مراكن كان نورث أمريكا ميه الكاسن كير صحيح عاو الشرف بيئيت هاي أنا جو كهلا يا أفكيجا يا أفكا دولة بنتلان يا أفكا دولة بنتلان إيوه مدحوينها سعيد عبد الله الدني إن هالكان إذا كلا سوق يبقلو شرف بيئيت هاي صدن الشمس سنة كدب إذنكو أو مدايسن ووليبا شعل دلكيني علنكيني با إن هالكان إذنكو دبدك تشوغا ودكيني إن آدكو همبليان إنسان كونا ودا تشوغتان عاو waxaan halkan u soo istaago kale inaan u hambaliyeeyo Somaliland meel walba joogto especially halkan ay nala joogto Minnesota waxaan markasta idin kula dardaarmayaa midnimada inaad adkaysaan dadku haddaysan midnimo lahayn meel ma gaarayaan waxaan kaloo u soo istaagay in aan idin xasuusiyo أنا أتكيو شركة كدعي نيروبي كو Somaliland وزيرة ذا قار كمدا يبنتلان كو جو آميين إن أي نقدان لبا ودن لبا ضد لبا معركة تدريس أو يجو نقدا ضد كم وضع شقية نبضة اسكو صعد كجناح السجا مهمة هلك أن شوغنو إن أن كأتكنو شركة كدعي نيروبي ضدك قوة الشرعي وزيرة Somaliland يبنتلان كلية كما نشقين كرتو أيجو أو هشية كلية لكن هشيس كوحو كسعدا ضدك الدبدة شوغا قربها هلك أن كنا لهاي إن أيجو هاشا هرؤسي وضان أنا نقولنا ضد هلك أن شوغنو إيميل كستو قربها كشوغنو إن أي تهاي فرين تلاديريو ضدك شوغا بنتلان يدتك شوغا Somaliland إن أي تهاي فرين تانو إن لقى وضع شقية نبضة لقانا وضع شقية جناحسجا لقانا وضع شقية يسكو صعدك سن نبضله waxaan kaloo ku darayaa jidkii ceeragaabo markaan ceeragaabo soo gaarsiino waxaan rajaynaynaa idinkuna inay inta kale ku dartaan isku socodka nabadda ah iyo ganacsigu wuxuu dhiirigeliyaa bulshada wuxuuna horumariyaa meel kasta oo qof kasta oo Soomaaliya ama heer Puntland ha ahaado ama Somaliland ha ahaado in ay horumaraan waxaan idin leeyahay hambalyo mar raba inaan hadalkayda ku sii dheereeyo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo shaqeeyay xalfadan quruxda badan anoo garanaya shaqada iyo dhibka ay leedahay in dadka la isku keeno shaqadan la soo qabto gogashan quruxda badan la soo waxeeyo waxaan kale u mahadnaqayaa gudoomiyaha jaaliyada Somaliland Muxtaar waa mahadsan tahay casumaadaadii iyo walaashay qadan Muuse dhammaantiin waxaan idin leeyahay
hambalyo waxaan rajaynaynaa sanadka dambe inaan soo noqono idinkoo intaan in ka badan haysta waxaan idin rajaynayaa hambalyo iyo nabad waxaan idinkaga tegayaa karti iyo kalsooni السلام عليكم صعب aad ayay u mahadsan tahay mulki gudoomiyaha North America ee jaaliyada Puntland waxay ku dheeraatay wada shaqaynta nabadgelyada iyo sidoo kale ganacsiga ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland aniguna waxaan dhiirigelinayaa cid kasta oo Soomaali in ganacsiga iyo sidoo kale iyo wada noolaanshaha ay xoojiyaan oo ay dhiirigeliyaan waxaan hadda ku soo dhaweynayaa kelmadda mahadnaqa Fatima Shaaciye oo iyadu ah ama door weyn ka qaadatay qabanqaabada xafladan soo dhawo Fatima بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد دمانت martida sharafta leh madaxda iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan caawa waxaan ku salaamayaa qof kasta masabka iyo mekaanka uu halkan ku fadhiyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh caawa waa habeen qiimo badan oo ayn kulanay xuska 18 May 2026 iyada oo dalkeennii la itiraafay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanay inaan idinla wadaago kulankan qiimaha leh midaynaya qalbiyadeena iyo himilyadeennaba waxaan jecelahay inaan ku soo koobo caawa hadalkayga keliya mahadnaq hadalka intiisa kale waxaan uga tegayaa mas-uuliyiinta kale diinteena suuban ee islaamka waxay si weyn inoogu dirigelisay mahadnaq iyo isqadarinta sida darteed waa waajib iyo wanaag inaan isku mahadceliyo gaar ahaan marka la qabto hawl wartal leh bulshadeena caawa waxaan si gaar u doonayaa inaan ugu mahadnaqo door qof oo door weyn ka qaatay horumarka iyo mideynta jaariyadeena oo ugu horeeyo gudoomiyaheenii hore Cabdiqani Xaaji Oktoobar iyo gudoomiye Muxiidiin Warsame oo dadaal iyo juhdi badan geliyay horumarka jaariyada iyo munaasabadan mideynteeda iyo Cabdiaziz ku magac dheer Ube oo arrimo badan si guurtinimo leh nala dhameeyay Muna Ali Firin oo iyaduna door muhiim ka qaadatay adeega bulshada una istaagtay daryeelka iyo horumarinta dadka waxqabadkeeda iyo daacadnimadeeda waxay mudan in si gaar loo xuso loona qiro waxaan sidoo kale si guud u wad mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka wada qabtay qabsoomnida madashan qiimaha badan ee caawa noo qabsoontay ee ugu horeyso qadan guuleed iyo dhammaan xubnaha kale ee aan mid u tirini karinin waa mahadsantiin walaal waa tacab iyo abaal aad dalkiina qashateen shaqadaas culus ee aad qabateen waxaan idigu booriyeenyaa dhammaantiin in aynu sii wadno wada shaqaynta isgarabsaaga iyo horumarinta bulshadeena midnimadu waa awoodeena ugu weyn waana furaha guusheena mustaqbalka ugu dambeyn waxaan u duceynaynaa geesiyaashii iyo halgamanayaashii naftooda u huray inaad dalkeennu qaranka dunida ka jira u noqdo inay ilaahay jaanooyinkiisa ku casuumo uma istugelinin inay inaga dabaaldegaan iyagu dagaalkoodii la itiraafay dalkoodii la itiraafay laakiin hadafkoodii iyo himilyadoodii ayaa inoo hirgeshay inay caawa aynu ku damashaadina waxaan kaga baxayaa caawa waa mee calanka kor u taaga waa mahadsantiin midda mahadnaqa Fatima Shaaciye waxaan idinka raali gelinayaa waqtiga dheer ee ku sugnaydeen halkan iyo oo sugaseen in halkan maaragtay ay xafladeenu inagu hor socoto
halkan fanaaniintii baa jooga cabdiqani xaaji oktoobar baa hogaaminaya cabdicasiis ayaan ku soo dhaweynayaa iyo cabdiqani soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan xaggan ka odhanayaa horta aad baa loo hadlay hadal badan waa inoo hadhay wasiir abgaal baa inala jooga oo haddana ku suntan guddida nabadgelyada somalilan ee dowladda cusub dad fara badan oo kale oo madaxa iyo odayaal dhaqameed waa inala joogaan laakiin intaasoo dhan waa la soo hadlay dhallinyaraa joogta inaynu hadalka sii wadno waxaanu ka yaro doorbidaynaa inaanu laba heesood soo dhex gelino dan hadalka dib ugu noqonno si dhallinyaradu ay boorka isaga tumaan soo markaa waxaan leeyahay inta aynaan brogaraamka wada dhammaystirin inaan u yeedho hodan meeda iyo seer maxamuud cabdiqani mee hodan meeday seer maxamuud mee cana meeday fanaanka fanaaniintooda maxaa la yidhaha abwaanka bal abwaankaan u dhiibanaa waa ninka soo taswiiray 900 oo fanaan caaw waxaanu ka rabnaa 900 ee fanaan uu flyerka ku soo taswiiray inay dhididkeeda idin qoyon dhididkiyo meeshaasi ay raxda gurto soo maasa hodanay hanoo biqin ku soo dhawo gudoomiye السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدوان دي وقت السلام يا دمانتين ماذا حيا من شباب فلبا مقام كيسي مدي عيسان السلام يا دردرتي فراها بدايت فرحتي فراها بدايت اعترافتي وحي ميدي كمان موضة صومال لهنا ولاتو صومال لهنا ولاتو إذا ما مغلو صومال لهنا ولاتو صومال لهنا ولاتو وما هتنتهين تبهوا وابه إما كانوا حنقلنا قيمتي فنكي سوغاتا أبوانينتي بايدي هاري فنانينتي باتشوغا واحد كم حد علينا يا نباتي بس لو قلت بدنا أوت معدن تذكروا يديرا أيانو نهاي ميت بين وضن هاي نباتين وحن سكن على كاركا قدومي ورجالية يعني يقول رجلي إسماعيل سندرة أبارو كم حد علينا يا قدومي هرا قدوميها حتى شوغان هو الصوب دوينا يا محيدين سي شرف الله يقول حبايب نوغو سعدان سكن واحد هرجيسو كما قال على كان سكن كسلامه يا دعاء النور سرعاله waxaan jecelahay qof kasta oo community-ga uu soo shaqeeyo volunteer uu soo shaqeeyo ixtiraamkiisa iyo sharaftiisa la siiyo si uu u helo qadarin sida uu helaan dhiirigelin kuwa soo socda iyo kuwa iman doona haddii lahay ka dhigo waxaa walaalkay halka jooga seer maxamuud isagana kelmadiisa siinaya hodan baa ku xogeysa calab baa iyaduna joogta raxma rose the queen is back aad baan idin wada salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالان هنولات annagu dibadaanu ka nimi aniga iyo canab waxaa ilaahay loogu mahadiyaa in halkan inagoo nabada aynu isugu nimi magaaladani waa magaalo fiican laakiin inkastoo aan in badan imi caawa waxaan u malaynayaa inaan in badan oo badan idinka maqnaan doono masraxa dushiisa somalilan hadday tahay laakiin aan magaalada iman doono waxaan idinku weeninayaa somalilan qolo uma baahna qolo maa tahay uma baahna calanku uma baahna dowladda qola ma leh qolana ma yeelan karto innagu shicib baynu nahay walaalaynu nahay wadajirka ayaa wax lagu qaban karaa waxaad leeyahay cadowga koowaad ee aad leedihiin waa qolo maraykan baad joogtaa halkii adduunka laga hagayay baad joogtaa caawa xaflad qurux badan oo keliya idiin dhacaysa halkaa ka wada hodan cabdiraxmaan isalow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول هلا magaca jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Minnesota waxaan leeyahay dhammaantiin yar iyo weynba happy May 18 35 sano ka badan ilaahay hayna jirsiyaan leeyahay waxaa jira laba gabdhood oo Holland ka yimid waxaa la yiraahdaa Bushra Usmaan iyo Hani Usmaan Abuukar oo u yimid maadaama ay dad fiican nahay oo si qurux badan ay Minneapolis ugu qabano inay nala qabtaan shaaraatu dam soo dhawaadaan leeyahay waxa soo dhaweynaya walaalkay Sheer Maxamuud iyo yartay
macaan canab waxaan leeyahay kusoo dhawaada Minnesota waa tan May 18 May dhalataba Somaliland xus baan u dhigaynaa Somaliland السلام عليكم دمانتين وادن سلاميا waxaan ugu salaamayaa happy 18 May وين wada joognaa insha Allah guuriyo guuriyo Somaliland shacabka reer Soomaaliya caawla soo camila xafladan waxaan dilayaa happy 18 May hadalka oo kooban waxaa la isticmaalaa ka hadlo arag ku saabsan midnimada isticmaaliyadaha uga faa'iideystaan fursadaha marka laga hadlayo jaaliyadaha saddex jaaliyadood baa loo qaataa tusaale oo xaqiijiyey ahdaaf waaweyn oo waxtaray dadka ay ka soo jeedaan jaaliyada koobaad ee tusaalaha u ah umamka dunida maanta nool waa Hindida waxay xaqiijiyeen guulo waaweyn oo la taaban karo waxay qabsadeen shirkadaha ugu waaweyn dunida maanta aynu joogno waxa la dhahaa laba qodob ayay ku gaareen taas waa midnimada qoyska iyo bulsho samir badan kuwa labaad waa Chinese-ka waxa la dhahaa waxa badan ka bedeleen Singapore Malaysia Indonesia waxayna ka sameeyeen ganacsiyo iyo maalgelin weyn waxaana la dhahaa waxay ku gaadheen iyagoo oo leh xiriir xoogan iyo sharing information labada qodob ayay iyagoo isticmaaleen qolada saddexaad ee tusaalaha loo soo qaato waa Jewish-ka waxa la dhahaa waa jaaliyada ugu faaca weyn ama ugu taariikhda weyn aadmiga ee ku nool in badan qurbaha waxa la dhahaa waa bulsho ambitious ah oo himilo xambaarsan waxayna saameeyaan siyaasadda bangiga iyo finance-ka waxaan uga socdaa reer Somaliland haddii aad rabtaan inaad saameyn yeelataan dadkaas waa dad lagu dayan karo oo laga dayan karo himilada inaad noqotaan bulsho xambaarsan himilo tusaale kooban ayaan soo qaadanaya waxaan tusaale soo qaadanayaa dadka reer Somaliland ee bartay caafimaadka haddii ay samaysataan network oo ay idinka raadisaan xog dhibta sababtay shacabkiinu inay Hindiya iyo Ethiopia caafimaad u aadaan waxa soo baxaysa fursad ay idinku badbaadin kartaan kaalintaas waxaan hadalka oo kooban ku soo gabagabeynayaa niman taariikhdu waxay ka warantay niman badow ah oo dunida soo maray oo wax ka bedelay waqooyiga Afrika France galbeedka France iyo bariga China waa nimankii la oran jiray Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta waxay inta ku gaadheen waxay ahaayeen bulsho xambaarsan himilo waxay ahaayeen bulsho aad u dadaal badan reer Soomaaliya waxaan ku dardaarmayaa samirka iyo himilada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay Muuse Xaaji Cabayd taariikhaha ayuu aad ugu dheereeyaa fadlan inoo fadhiista waxaan u mahad celinayaa wasiir Abgaal oo in badan halkan nala joogay waad mahadsan tahay way noo soo xidhi doonaa barnaamijka aadan wali ayaan kelmad 1 minute ayaan doonayaa inaan aadan wali siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالنا أنولاتو سومالنا هقوليستو قرن كينو هقوليستو أنيقو هالكن عاوة هالباقة أيوم بانكدريا وعن ليا هاي شان إيه صدو سنو وعمر الدم وددكو هايكو قان قادان ويلكا إيه قبضونا هاي قري إيه أبضبكو يشان سومالنا مانت هالكاسي تاقنتهاي halkan waxa fadhiya Abgaal waa wasiiradii ugu qaalisanaa Somaliland halkan uu fadhiya dadkeenu uma baahna qabyaalad uma baahna reeraysi waxaynu u baahanahay inaan gacmaha isqabsano horena aan u soconno waxaan halkan isagana ugu mahadnaqaya gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda iyo qoladan groupkan cusub ee jaaliyadda maanta soo qaybqaabiyay xalfadan oo aanan arag wax dhibaato ah wax problem ah iyadoo gacmaha la isaysto oo labadii gudoomiye ee u kala holeeyay xalfaduna ay isugu wareejiyeen si qurux badan xagan caawa ay u hadleen waxaan shacbiga reer Soomaaliland ku gubaabinaya in gacmaha la isqabsado oo aan la eegin cadow fara badan oo inagu xeeran iyo waxaas aynaan ka sheekayn balse aynu u fikirno shan dhalinyarteena soo kacaysa oo aynu eegno mustaqbalkooda aad iyo aad ayaan idigu mahadnaqayaa Cabdixasiis iyo groupkiisa ina kan xiriirinayna aad baan ugu mahadnaqayaayo marka barnaamij la xiriirinayo dhibtiisu leeyahay
aad baan walaalkuugu mahadnaqaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay waxaan ku soo dhawaynayaa ibraahim dheere oo aan wasiirka inoogu xigi doona barnaamijkeennana qaybtii labaad ayaynu u gudbi doonaa ibraahim dheere ayaan ku soo dhawaynayaa masraxa ibraahim dheere waxaan u malaynayaa xoogaa waqti buu yar qaadanayaa waxaan hadda ku soo dhawaynayaa miyaad aragteen Soomaali heesta oo calanka amaanta oo ciidda amaanta horta Soomaalida waxaynu kala tagnay xigmadii iyo caqligii ummadda Soomaaliland waxay ahayd indhaha Soomaalida laakiin hadday la gartaan iyadana waxaan la qabanaynaa soo maaha halka waxa jooga wasiirkeenii hore iskaarsiinta nin la yiraahdo Maxamed Jaamac Abgaal ninkii reer Soomaaliland cafiyo wax yar bay ugu baxsaday weey aynu cafilay imika wuxuu ka mid yahay xubin guddida nabadda wixii laga joogaa Minnesota anu hadalkii iyo waddankii isagaan u daynayaa laakiin waxaan doonayaa idinku dardaaro hal eray Soomaaliland waxay u baahan tahay in dadkeedu isku duubnaado in maalinba madaxweynaha jooga la shaqeeyo in qaranimada laga wada goolaato in aanay noqonin wax qof leeyahay qaranka markii loo hogamayay iyo markii dib loo dhisayay hadda dib u akhriyo taariikhda Soomaaliland ninkii dastuurka qorayay maalinta dastuurka qorayay ma oranin maxaa gadabuursi ugu jira maxaa isaaq ugu jira maxaa dhulbaanto ugu jira maxaa warsangal ugu jira maxaa beelaha kale ugu jira ma oranin waxa loo aasaasay qaran la rabay inuu qaranka Mareykanka u ekaado oo guurti leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo madaxweyne ku xigeen leh oo nidaam xisbiya leh marka jiilkeena maanta jooga waxa looga baahan yahay inaynu intaa horumarino inaynu intaa ilaalino inaynu ku faraadeegno waxa leeyahay Soomaaliland ha guulaysato guuliyo gobonimo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsan tahay ibraahim wasiir abgaal mar kale sacabka u tuma masraxaan ku soo dhawaynayaa ugaaskaa jooga marka hore oo masraxa ku soo dhawayn doona ugaas soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين runtii madashan ana waxaan ku qiyaasa garanay dadkii maaragtay waxaa la odhan jiray meesha il yartaas qabatay dadka qiimaha badan ee xafladda yimid ee haldoorkii ummadda reer Somaliland iyo martida kale inala joogtaba sida wakiilka Puntland Marwo Mulki iyo maxaan ku idhahdaayay waftideeda iyo senatarkii inala joogay ee gobolka iyo martida kaleba waxaan idinku salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta in yaraan ismaqal leh waxaynu u baahannahay inaynu farriin bal waxaynu isu sheegayna si aynu u dhegaysano reer Somalilandow dee heestu waa muhim laakiin waa inaynu weelaynaa waxaynu isu sheegayno saddex qodob baan rabaa inaan halkan ka gudbiyo qodobka koowaad waa reer Minnesota caawa farxaddaan halkan la taaganahay ninka xidhiidhaya wuxuu laa soo koob laakiin dhowr minid baan ku darsanayaa laba farxadood baa caawa iskoobsaday mid waxa weeye waa maydii ugu horreeyay innagoo layna ictiraafayno oo dabaal degnay aad
aad iyo aad baynu ilaahay ku mahadnaqaynaa farxadda labaad iyadana oonan ka dhicin waa reer Minnesota caawa midaysan oo xafladdaa wada jooga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii xafladdan iyo madashan iyo golahan weyne noo soo sameeyey ee guddoomiye Muxyidiin hogaaminayo tiimka kale la socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maatantiin waxaan ku darayaa reer Somaliland oo qodob idinkaan idin leeyahay qodobnaas walaalaheen Soomaaliyeed baan anugu odhanaya oday dhaqan baan ahay waa dardaara waxaan meesha gudbinayaa reer Somaliland waxaan leeyahay war 35 sannadood baynu soo samraynay waxaynu doonaynay way bilaabmeen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa halkaa marka ballaarin aan gaadhno gamcahaan isu qabsanno u midowno arrinta labaad Soomaalida si kasta inoo necab yihiin aan soo dhawayno waa walaalihiin aan soo dhawayn eraygaa dhegaysta Soomaalida inaguma nebcin waxaan raacinayaa madaxda Soomaaliya waxay tidhaahdaa dadkan in madaxa baa caburinaysa war dadkaan 35 sannadood intooda badan ma jirin in badanina garaad ma lahayn odayda yar baa fadhiya mooyaane waa shucuurta dadkaas waxaa halkaa keenay doonistooda iyo rabitaankooda Soomaalidu inay eraygaa aragto oo tixgelisaan yaa muhiim ah leeyahay erayga ku soo gunaanadaya qolada walaalaheen Soomaaliyeed odhanaya waxay tahay war dadkaas hadday tashadeen oo isku filaadeen idinkana waxba idinku filayeen inaad faraqa qabsataan ma wanaagsanee walaalayaal waan isu ducaynoo faraha ka qaada iyo dacalka jiidisaan aad iyo aad baa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaheennana waan u hambalyaynaynaa halkan baan salaan uga gudbinaynaa dee dowlado badanina waa soo socdaan baalayni maydaa lagu dhawaaqayaaye aan dhegta ku hayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas malaa wax buu og yahay oo ictiraafkii buu sheegayaa gabagabada barnaamijka la soo gaadhay qaybta soo jeedinta ama hadalka waxaan ku soo dhawaynayaa wasiir Abgaal oo aan halkan masraxa inuu soo istaago uga baahanahay si uu kelmadiisa isaguna u yidhaahdo ku saabsan munaasabadan 18 May 2026 halayla soo dhaweeyo soo dhawow wasiir hore soo dhawow الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مدحوينها قرن كجمهورية الصوماليلاند مدحوينها اعترافك مدحوينها كعيك جمهورية الصوماليلاند مدحوينها كعيك اعترافك لما قرياش قرن كيجو هيدا الصومال قرياش الصوماليلاند لما تروح عليه همبلغ مرلبات هوينك meel kastoo nu taagan ayna garab taagan bilaa salle odayaasha dhaqankiisa kooxda fanaaniinta miidiyaha dhammaantiin way xafladda ka soo qayb gashay mar labaad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu joognaa habeen weyn oo agteenna ka weyn habeen aan reer lahayn habeen aanu xisbi lahayn habeen aanu dowlad gaari lahayn habeen la wada leeyahay habeen ay leeyihiin ummadii reer Soomaaliland 1960kii calankii Soomaaliya ugu horeeyay la taagay cidii Ingiriiska kala wareegtay ummadii halka ku midowday calan maalin ay wada leeyihiin ayaynu maanta u dabaaldegaynaa walaalayaal maalintaasi maalin cid gaar iyo reer gaar leeyahay ma aha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo ku hadlaya magaca guddiga nabadgelyada qaranka Soomaaliland inaan u soo taagnahay Soomaaliland oo Minnesota guddigeedii jaaliyadii Soomaaliland ee halkan oo midaysan shaqada la doortay la diray weeyi waxaan ka shaqeynay muddo 2 bilood waa riixaya ilaahay nagu asturay waan gaadhnay walaalayaal Soomaaliland 35 sannadood bay raadinaysay inay ummadda maalin u ictiraaf ka hesho ilaahay mahadii waxaynu sanadkan 35 inaynu helno ictiraaf sabab kaliya oo bay leedahay markaynu 6 sanad madaxweyne oo isku xiga doorasho dawladnimo sameynay walaalayaal in la ictiraafay waad baqasheen ictiraafkaasi ma aha wax keeg layna siiyay maaha waa wax aynu mudanahay oo ay shaqaysanay weeyaan markaynu 6 doorasho 6 madaxweyne oo isku xiga
oo laba madaxweyne oo xil haya iyo doorasho ay qabteen markii laga guulaystay haneeyeen oo ka baxeen oo madaxweyne Tayyip Riyaalkow ka ahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdina ka xigay ayaa qaybtii dhinayd waxa dhamaystiray madaxweynaheena maanta Maxamed Cabdilaahi dabadeedna saasaynu ku helnay ixtiraafkii marka walaalayaal habal yaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba intii ugu horreysay habalada say jirtay guud ahaan qarankii Soomaaliyeed baan u dirayaa laakiin fursadan laba qodob baan ka rabaa inaan kaga faa'iideysto mid waxaan odhanayaa afka lagama dhowre reerka tolka ee ka soo jeeday Gadabuursi baan eray odhanayaa intaan calanka ku kala duwanahay fikrahan ayaan eray caaw odhanayaa eray kalena waxaan odhanayaa beesha dhexe saaq oo aanu afaqaano iyagu inay afaqaanana eray baan odhanayaa tolkay waxaan leeyahay dad muddo kale oo caqli badan dad aqoon badan dad garasho badan oo u baahannahay waxtarkooda iyo midnimadooda iyo wanaagooda weeye waxaa laga yaabaa rag badan inaan ku kala duwannahay fikirka calanka dushayda saaran inaanu ku kala duwannahay baa suuragala oo jirto runa walaalahayga waxaan leeyahay waa nimayo Hargeysa boorama waxa u jirtaa 120 kilomitir dhagaxaan boorama ka tuura Hargeysa ku dhacaya boor Hargeysa dadka maanta degan 7 meelood hadii loo qaybiyo meeli waa Gadabuursi weeyaan haddaan food dhigto halkaasaan baarlamaanka iyo golaha deegaanka ka soo baxaya oo dhaayo xerada xirinta waxaan Hargeysa albaabkeeda ka keeni waayo ninka ila xamar baad ka keenaysaa waa in la ciyaarayo weey kun maaha ma aflagaadeynayo erxin oo ma qooro laakiin waxaan leeyahay war waan ka gar jooga ana ka saxsan baan leeyahay intaasaan ku dhaafaya hadalka badin ma xaflad weyn baa jooga beesha dhaxana waxaan leeyahay oo war heerana shafqa anu waan faqaana iyaguna way afyaqaanaan caawa waxaan leeyahay habrihii way fuleen habrihii waxoodii way qabaan madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Cirre ku xiga waa madaxweyne Gadabuursiga cod kama nasiiseen waar ma bixiseen qaar doomo Gadabuursiga oo wadoona way nagu ciyaareen waa ma runtood ma ciyaarayaan wallahi way bixinayaan arrinkaasi waa bilow sidaasaynu wadaynaa midnimada Minnesota ka arkayna waa ku faraxsanahay dowladda qarankiina waa gaarsiinaya wallahi waa ku faraxsanahay aad caawdo waan ilmeynayay wadankii meel fiican u maraya horumar baynu haysanaa midnimada inoo ilaaliya walaaltinimada inoo ilaaliya caalamkii waxba ina tusay waa ixtiraaf baan helay inta hadhana waan dhamaystiraynaa midnimo iyo guud baan diraysiinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay wasiirka oo runtii hogatus fiican inaga siiyey qaab dhismeedka Soomaaliland wasiir waxaan ku leenahay waan soo dhaweynaynaa cidda ugu horeysay codeynaysaana waa aniga qaybtii من حاجة ما نبيرها عبد الغني بقى كان تاجن يكوحدي فنانين تا والله ما كرهارين وحن في لينا دالي دونتانو هذه أتوقع ما تسنتهين إلا ما تناقى والدي كنت عالمية إلى عاتستين باردي أركان لكن حتى لو بلا ما يسوي حكلوا دي شيء يعيروا وسيسة قولوا معلنتي يا عروتا بيش صوتك كذا سعر ديدا فراير كوارك تاني يدري حفلة كراين نوقف سماس أتي معلنتي فنانين تي دي كذي نوي شوغان حتى الله قبل عبنا وأنا ما حد عينا بدك حفلة قروح بان سوق أبغالي شرفيا كراين عبدتين تيك توك كي وين عمل لما شوغان أبوكر شار أوت هذه أبغال مع ستين دي شيء سير محمود يعنف كالي ولا صلوا ولا وين باشرنا وين حفلتنا نحصلنا ما اللي دار تبع حسب أنو دقنا كنا على تصبرن كم يهرون عين